بسم الله الرحمن الرحيم maanta waxaan ka hadlanaa sixirku waa waxyaalaha qofka shaydaanka u dhawaada ee la shaqeeya uu soo akhriyo kelmado ama waxyaalo kale u soo gunto waxyaalahaas oo qofka u soo gunto oo qofka kale saameyn ku yeelanaya waxyaalahaas oo shay xaaraan ah diinta Ilaahayna subhanahu wa ta'ala gaalnimo tahay shaydaanka la shaqeeyo waxyaalaha qofka shaydaanka u soo gunto waxa laga yaabaa qofka qalbigiisa inay saameeyaan oo qofka awoodiisu ay daciifto oo qofku uu noqdo qof daciif ah oo waxba qaban karin ama waxyaalo kale xaalad kale ay ku dhacaan oo fara badan oo noocyada sixirka kamid ah in qofka awoodi ka tagto ama qayb caqliga ka tagto in qofkii waxyaalo badan uu isagoon rabin inuu sameeyo haddaba ma waxaynu ka hadlanaa noocyo badan buu sixirku leeyahay qaybaha sixirka waxyaalaha uu kala qaybsado waxaa kamid ah sixirka dabka loo adeegsado waxaa kamid ah sixir biyaha loo adeegsado waxaa kamid ah sixir kale oo loo adeegsado ciidda iyo waxyaalahaas loo adeegsado waxaa kamid ah sixir loo adeegsado hawada in la raaciyo oo hawada raaca markasta dabaysha batana sixirkaas uu sii faafaya waxaa kaloo jira sixirkasna dabka loo adeegsado oo isaguna dabka iyo waxyaalahaas loo adeegsado oo loo isticmaalo waxaa kaloo jira sixir ciidda loo adeegsado oo la aaso oo dhulka lagu aaso ama guryaha ama beeraha lagu aaso waxaa jira sixir cuntada lagu daro ama biyaha ama wax la cabayo kaasna waa ka u daran weeye sixirka ka u daran oo xun weeye sida diinta sallallahu alayhi wasallam inay sheegtay waa sixirka ugu daran ee qofka waxyeela waxaa jira sixir loo adeegsado mashfuuf oo waxyaalaha la afuufo ama waxyaalo qiiqa oo qofka gurigiisa loo adeegsado ama beel kale loo adeegsado waxaa kaloo jira sixir isaguna loo adeegsado sidoo kale waxyaalaha la guntiyo oo qofka xubni waxyaalaha uu isticmaalo ama timihiisa waxyaalahaas oo la gunto oo qofka isna lagu sixiro walaal sixirku waa shay aad u fara badan yahay noocyadiisa waxaa kaloo kamid ah sixir tafriiq oo qoyska lagu talagalay in lagu kala kaxeeyo dadka qoyska oo sixirkaas waxay dadka qoyska dareemayaan qof kale hadalkiisa ku raaxaysan kar waayo oo hadalkiisa uu ku noqdo dhibaato iyo ciir uu ka dareemo wuxuu qofkaas dareemayaa xanuun buu dareemayaa wuxuu dareemayaa ciiri nolosha ku ciiriya wuxuu dareemayaa waxyaalahaas iyadoo sababta looga dalinayo qofka sixirka waxa geysanaya shaydaanka in labada qof ee muslimka lagu kala kaxeeyo oo lagu kala ciiriyo waxyaalaha sixirkaas in qofku isku arkay waxa kamid ah inuu arko in halka dhabarka u hooseysa oo xanuunsto oo beesha dhabarka u hooseysa oo ay xanuunto dhabarka hoostiisa ay xanuun ka dareemo waxaa kaloo qofka waxyaalaha isku arkay in aragiisu uu daciifo oo mar walba noqdo qof mar hoos eegaya markuu qofkii kala arko oo aragii qofka uu dhibsanayo taasina waa kamid ah calaamad ku siinaysa qofkaas inuu sixran yahay oo sixir tafriiq u hayo waxaa kaloo qofku dareemaya hadduu sixirka waxa lagu sixray uu yahay cunto afkiisa qarmuun iyo raaxo wax qarmuun oo ka soo baxaya marka waxa kaloo dareemaya waxyaalo kale jirkiisa sida cuncun iyo waxyaalo kaas oo jirkiisa ka soo baxaya wuxuu dareemayaa nasniin la'aan farxad la'aan buu qofkaas dareemayaa wuxuu maqlayaa codad qariiba soo markuu seexdo codad bisada iyo waxyaalo qariiba wuxuu jeclaanayaa geerida wuxuu inuu ama istiro waxyaalahaas jeclaanayaa wuxuu ku badanayaa macaasida iyo waxyaalahaas caadadiisa ayaa qofka badanaysa wuxuu noqonayaa qof wax walba ka cadhooda oo qofka sixir tafriiq labada qof ee lagu sameeyo wuxuu noqonayaa qofkaas qof caadadiisu badan tahay macaasida uu badsanaya oo macaasida xaggeeda ayuu cararaya marka waxa sixirkaas lagu sameeyo wuxuu noqonayaa qof macaasida iska dhex dabaasha haddaba haddeen sharaxaadina walaal si wadno sixirkaas dadka qofka muslimka lagu rabo xaasidiinta shayaadiinta inay dhibaan si Ilaahay subhanahu wa ta'ala iska daweyno Ilaahay wuxuu siiyay dawo xanuun ma jiro ilaa dawo leeyahay dawadaas waxa weeye waa diinta Ilaahay subhanahu wa ta'ala qofku inuu quraanka Ilaahay subhanahu wa ta'ala ruqyada sharciga inuu akhristo maalin walba in salaadaha faralka uu ilaaliyo in markuu tukanayo gurigiisa uu ku aadaamo waayo aadaanka markan uu nabiga sallallahu alayhi wasallam shaydaanku marka la aadaamo uu carara markuu tukanayo inuu aadaamo oo aqiimo gurigiisana sunnayaal badan ku tukado inuu marba weysa qab ku seexdo inuu ruqyada suuratul baqara oo akhriyo maalin kasta inuu guriga ku akhriyo inta Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa ka kaxaynayo suuratul baqara inuu maalin wal yoomiyan guriga ugu akhriyo ama uu dhageysto waxaa kaloo rabo walaalahay qofku inuu sameeyo inuu qof culimo oo sixirka nooc yahay bil soo saara inuu adeegsado sixirkaas walaalayaal waa xaraan weeye waa shay xaraana oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala inaga xaratimay Ilaahayna subhanahu wa ta'ala quraankiisa wuxuu ku leeyahay wama yu'allimani min ahadin hatta yaqula inma nahnu fitna hatta yakfur waa gaalnimo qofka xadiistiisa ku saartay quraanka kariimka hadda akhriyanaba Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay waa xaraan in la barto sixirka waa xaraan qofka sixirka iyo waxyaalaha ku tacalluqa iyo shayaadiinta iyo fuuxisooyinkana waa gaalnimo marka walaalahay xarabo inay ka digtoonaan waxyaalahaas Ilaahayna subhanahu wa ta'ala ummadda wixii hayo Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka dulqaado insha Allah walaalada la shirgalay haduu faa'iido leeyahay wax ka faa'iiday cliptan aan soo duubay anoo ahaa Maxamed Cabdi Qani boqor duraan
subscribe iyo like tan hanaga ilaawina.